xaqiiqdii maanta waxay ii tahay farxad aan la soo koobi karin oo qalbigayga taabato. sababtuna waxaa weeye magaaladan aan maanta imid oo ah caasimaddii ku meel gaarka ahayd ee maamulka koonfur galbeed waa magaaladii igu wax soo saarka iyo wax ka qabadka ugu badnaa oo aan noloshayda geliyey. magaaladan Baydhabo Jannaay waa magaalo qadiim ah, xadaarad leh, waqtigeedana haddee dad badan oo yar ayaa yaqaano halkan fadhiya. marka aad ayaad ugu mahadsantahay madaxweyne inaan halkan imaado adigoo igu soo dhaweeyey igana codsaday inay noqoto magaaladii ugu horreysay oo aan u imaado shaqo intaan xafiiskan qabtay. safarkan waa safar shaqo oo aan halkan ku imid, wuxuuna qayb ka yahay waxqabadkii iyo waxyaabihii la taaban karo ee wasaaradaha dowladda federaalka ah ee xukuumaddeyda aan ku heshiina 100 maalmood ayuu hordhac u yahay, taasoo aan ugu nimid inaan soo booqanno mashaariicda hadda gabagabada marayso, kuwa cusubna aan dhagax dhigi doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo. marka farxaddaas iyo reereyntaas waa ku mahadsantahay si aad noogu soo dhaweysay. idinkana waxaa idin leeyahay magaaladan magaalo barwaaqo allah ka dhigo. shacabka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyagana mahad ballaaran ayaan u jeedinayaa. waa dad sabir badan, dad wanaagsan, dad xaqiiqdii yaqaano dowladnimada iyo sharafta qaranka Soomaaliyeed waaye. marka aad ayaan iyagana ugu mahad celinayaa. waa mahadsantihiin soo dhaweynta aad ii fidisaan aniga iyo wasiirada ila socday oo ka kooban wasiirro kala duwan. dibna aan ugu kulmi doono shirar gooni ah iyo mid gaar ah.